بيا دولو ما هنا بدنا ما هنا أيه مكان أركان وان كسر كذا ترى aad buu ka xsan yahay ma laba soo koobi karo waligeena soo mukcin madaxweynaha waxa kula talin lahaa Musabbix Cabdi inuu golayaasha iyo shacabka la hadlo oo uu sheegay heshiisku waxa uu yahay aan waxba ka qarin wadan dhowr iyo 70 milyan oo 30 milyan ku soo dilay waxaan u arkaa inuu wadanka uu halis weyn uu ku yahay runtii in badan laga shalaayo doono arrinka waxaan u arkaa inay ka dambeeyeen shirkii saddex goosoodka ahaa ee ka dhacay magaalada Djibouti حسن يا موسى iyo ay ku shirayeen iyo حسن Sheekh iyo Muuse iyo Ismaaciil waxaan ugu qabaday madaxweynaha wadanka u dooranay madaxweynuhuna wuxuu inagu hago in lagu taageero in lagu hor yimaado mahadi saacadii u dambeeyay waxa soo baxay heshiis is-afgarad oo ay wada gaadheen Itoobiya iyo Soomaaliland haddaba dadweynaha reer Hargeysa ayaan wax ka weydiinay sida ay u arkaan heshiiskaas saacadii u dambeeyay waxa soo baxay Itoobiya iyo Soomaaliland heshiis is-afgarad oo ay gaadheen soo kula muuqda anagoo waan daawaday heshiiska ma soo dhaweyn waan diidanahay waayo Itoobiya dal jarnay weeye laakiin inaynu badeena day wax kala soo degan waan ogolahay laakiin dhul aynu siino oo aynu siinaa waan diidanahay ma ogoli waxa arka ma ogoli waxyaabo ka dambeeya timir lafa ku duugan aye markaan arka anigu waan ka soo horjeedaa dareenkaygu aad buu ka xsan yahay ma laba soo koobi karo waligeena soo mukcin marka Itoobiya dadkeedana waxa kala soo degto inuu ka cashuuro laakiin dal aynu siinay dadkeedana siinaa midna ma jirayo arka waxaan ku xignaa geeri wixii ilmahan oo dan maxay Soomaalidu tiraahdaa maamaabad wixii umusha oo dan ilmahan oo dan kawdhi marka masiirkeennii iyo dal wixii oo dhan waxay markii hore soo dooranay inaynu deeg ku aaminay marka isagu halku inoo kaxaynay isaga dee أنا كنت أقرصني رأيي كأحنا نقول قبادي مدحوينا وده كوت وراني مدحوينه هنا ده وحوينا جوهجو إن لقوا تاجرون إن لقوا ريما دم هدي saacadii u dambeeyay waxa soo baxday safgarad heshiis oo ay gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya soo kula muuqda arrinta waxaan u arkaa qariska tuurnimadii ugu weyneed arrintaasina caqliyan wax la aqbali karayo ma aha adduunka lama arag wax yiraahdo dhul baan bixinaya Itoobiya lama mid aha Turkiga iyo Imaaraadka oo naga kireysay dekedaha wadamadaas oo wadamada naga fog waana tagi karayaan laakiin Itoobiya labadii qarni ee u dambeeyay waxay doonaysay dhul ay hesho oo bad ay hesho marka maantana tii waa hirgashay ayadu barbaraad ay ku jirtaa heshiiskan ay gaadheen Itoobiya iyo Soomaaliland sidoo aragtaa horta niyo heshiiskaasi mar dhaweydun buu soo baxayo social media lagu arkay waxaan u baahan yahay horta in aad loo eego oo la akhriyo mana qurux badnayn caadifad laga hortago haddii dee wuxuu halis yahayna in indha caafimaad qaba lagu eego haddii fursad Soomaaliland u tahayna dee in la soo dhaweeyo marka anigu waxaan imika odhan lahaa waa in heshiiskaas si fiican loo eegaa inkastoo imika yahay is-afgarad oo memorandum of understanding yahay laakiin wuxuu u baahan yahay si fiican loo akhriyo madaxweynahana waxa kula talin lahaa Musabbix Cabdi inuu golayaasha iyo shacabka la hadlo oo uu sheegay heshiisku waxa uu yahay aan waxba ka qarin maadaama laba dal heshiis galayaan madhow waxyaabo badan baa soo bixi kara oo heshiiska ku lifaaqan marka madaxweynuhu markuu soo noqdo waa inuu si furan dadka ula hadlaa uu sheegaa waliba shirki ka horeeyay ee Xasan Sheekh Itoobiya kula qaatay iyo Kamba qaabka loo wajahay iyo qaabka wuxuu kula soo heshiiyay maadaama masiir umadeed tahay 30 sano umad dhisnayd oo golayaal iyo ay dhammaan haykalkii dawladnimo u dhisnaayeen waa inuu si furan ula hadlaa oo aanu waxba inoo qarin sidoo aragtaa safgarad heshiiska ay gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya waxaan u arkaa inaan Soomaaliland wax dan ugu jirin sababtoo ah dekad baynu leenahay dekedeeniba dib u dhis baa lagu sameeyay taas u baahan tahay inay shaqeyso marka Itoobiya haddii kiriyo doonayso taa haynaga kiraysto Itoobiya dhul ma hayna badna ma hayna raalli naqmin safgarad heshiis oo ay gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya sidoo aragtaa waxaan u arkaa dee Itoobiya muddo dheer bay ku taamaysay inay bad hesho waxaan u arkaa dee wixii ilaa 60 ay u dagaalamaysay inay maanta heshay oo ay runtaa u hirgalaan waxaan u arkaa anigu heshiiskaasi totally inuu yahay qalad la galay anigu aragtida gaar ahaan waxaan u arkaa dee wadan dhowr iyo 70 milyan oo 30 milyan ku soo dilay waxaan u arkaa inuu wadanka uu halis weyn uu ku yahay runtii in badan laga shalaayo doono haddii imika heshiiskaas uu saa ku dhaqan galo uu saa ku hirgalo sidoo kale waxa soo jeedin lahaa
in golayaasha ay mari doonto ee shaqada kule ay joojiyaan. sideed u arag is-afgarad heshiis oo ay gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiskaas waxaan u arkaa mid qaldan oo lagu degdegay oo aan waqtigiisii ahayn kuna habboonayn waayo waxay ahayd in baarlamaanka iyo waxaan ay ka doodaan haddii cid lagu wareejinayo dee dood la geliyo degdegan wareejintan degdega aad iyo aad baan uga soo horjeednaa anigoo khaasatan wuxuu ku beddeshay ma uu sheegin anigu waxaa baan lahaa haddii wax lagu bedelanayo aynu ku bedelano kilalka Soomaalida intaynu ka degno haynoogu bedelaan baddan uu bedelay laakiin waxa alaali wax inoogu bedelay ma jirto waxaan uu martiroorteeyey waa qalad ka dhacay madaxweynaha imkana faan heshiiskan ay gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya sideed u aragtaa horta laba dawladood way heshiis jireen heshiisku waa wax dhaca mar walba waan soo dhaweynayaa laakiin maxaanu ku bedelanay yani wax touchable loo baahan yahay oo ku bedelanay heshiiskan taa in la cadeeyo ma dawladda cadeyso laakiin sa kale waan soo dhaweynaa heshiiska waxaan leeyahay yani waxa weeyaan raayaha marka eego way fiican tahay in heshiis la galo laakiin maxaa bedel u ah heshiiskan oo yani anagana faa'iido noogu jirta taasaan u odhan lahaa in yani dawladda cadeyso yani faa'iidada maxay tahay ka dambaysa yani Soomaaliland ku qabto heshiiskan saacadii u dambeeyay waxa soo baxay is-afgarad heshiis oo ay gaadheen Itoobiya iyo Soomaaliland suu kula muuqday arrinka waxaan u arkaa arrin aad iyo aad u qaldan iyo gaf laga galay jamhuuriyadda Soomaaliland waayo haddii aynu dekedaheena aynu ictiraaf siisanayno dekedaha kale inoo hadhay berbera ayaynu iyo magaranaysaa laasqoray iyo maydh iyo xiis kuwa kale aynu ictiraaf ku bedelayna mar haddii tani dhacday marka arrin khalad ayaanu aragnaa in dekedaha jamhuuriyadda Soomaaliland ictiraaf lagu bedesho welibana arrinkaa waxaan u arkaa inay ka dambeeyeen shirkii saddex goosoodka ahaa ee ka dhacay magaalada Jabuuti xasan iyo muuse iyo ay ku shirayeen iyo xasan sheekh iyo muuse iyo ismaaciil arrinkaas marka gaf baan u aragnay Itoobiya waxaan ogeynaa in badan doonaysay dekeday deeysay marka u cuntay mayso madaxweynena dambi buu qaranka ka galay shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay dalkiina difaacda waxaan anagu qabaa madaxweynaha waddanka u dooranay madaxweynuhuna wuxuu inagu hago in lagu taageero in laga hor yimaado ma hadde waxaan u arkaa heshiiskaas si wanaagsan baan u arkaa fakar wanaagsan fakarkaas wuxuu ka tusay Itoobiya in badan baynu magarasa xiriir lahayn dawladda kale inuu xiriir kale la Itoobiya weeyaan magarasa marka fakarka waxaan u arkaa fakar wanaagsan assalaamu alaykum wa barakaatu horta heshiiskaasi marka dhinac laga eegana waa halistiisu wataa marka dhinac laga eegana horta waa guul weyn oo Soomaaliland soo weytay taa marka la eego horta heshiiskaasi waa heshiis hordhaca weey maaha in badii la bixiyay 20 kilomitir la sheegay in Itoobiya maxay ahayd ictiraafna siinaysa maaha waa heshiis la isku afkartay waana hordhac marka heshiiska u dambeeya laakiin heshiiskaasi heshiis in lagu degdega maaha badda ama badaha ay Soomaaliland waa bad ay Soomaaliland ka dhaxaysa bad Soomaaliland ka dhaxaysa marka heshiiskaasi horta heshiis lagu degdegay inuu yahay marto kaamisin anigu wixii ilmahan u dana maxay Soomaalidu tiraahdaa maamaabad wixii umusha u dana ilmahan u dana kawdhe marka masiirkeennii iyo dal wixeenii oo dhan waxaynu markii hore u soo dooranay inaynu weyn ku aaminay marka isagu halku inoo kaxaynay isagaa anoon ku taageersanay reeyay heshiiskaas horta aragtaanteeda weli fiican laakiinse waxay u baahantay ka fiirsin laga fiirsado Itoobiya waxay rabto yaalka u socdo u baahantay fiirsin laakiin dekada Soomaaliland dekada labaad hesha aad bay u baahantay Soomaaliland aad bay u baahantay waa dal soo koreey moogta marka way u baahantay walaal Soomaaliland dekada labaad shacabkeygii dawladeedba faa'iidada laakiinse Itoobiya faa'iidada laga helaya in ka fiirso u baahantay shacab iyo mas'uuliyiinba marka laakiin qof kaliya shakhsi kaliya heshiis ma gaari karo kaliya dal ma gaari karo wadadka mas'uuliyiin buu leeyahay shacab buu leeyahay in markaa ka fiirsi meelkaas loo baahan tahay waxaad aragtaa is-afgarad heshiiska ay gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya gaan waxa leeyahay waa arrin qalada cadowga intaas oo nooc ciilana in dalka lagu soo dhaweeyo ma ahayn dalka barka badanayna la siiyo maaha waa arrin qaladan leeyahay oo ka soo horjeeda heshiiska ay gaadheen caawa soo baxay Itoobiya Soomaaliland aad iyo aad baan wax ma waayo dhul hore safari area bay Itoobiya inaga haysan u tireen
marka kii hore inay soo celinaa ma ahayn inaan mid damba dee sii siina ama ugu darna ma ahayn sideedana waddamada jaarka ah dee dhulalisma siiyaan waxa la dhahaa waa wararka waddamada xuduudda leh way kala ilaashadeen waxooda se inay kusoo dhex galaan ma ahayn waa dee annaka Itoobiya marka hore heshiis maynaan ahayn horena waan isu dagaalaan marka aad iyo aad baan uga xumayn najiib xaaji MMTV caana xilwa cab oo carruurtaadana sii fadlan hooyo ka caawi carruurtaadu inay maskaxaan iyo jidh ahaanba koraan oo sii caana xilwa